ujeeddada jacaylku ay ugu yar tahay maansadii kalaasiga ahayd ee soomaalida taasoo markii aan ka jawaabayay aanu aaneeyey habkii nololeed ee ka jiray geyigii ay soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggeedii xooloraacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay waxaan idhi wuxuu ahaa geyi aan nasasho laga aqoon oo halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanu kala gool ahaan jirin colaadda iyo cabsida ayaa joogto ahaa haddii habeen dumo iyo hadduu waaberiyo goor walbaba raggu rikaabku joog buu ahaa wuxuu ahaa xilli ay si ba'an xoolaha u kala qaadi jireen kolkaas bay u ahayd mar ay geel dhacayaan iyo mar ay dhicinayaan haddaba soomaalidii geyiga sidaasa muddada dheer ku dhaqnaydi waxay ka dhaxashay dabeecado ilaa maantaba ay in badani kala socdaan waxaana dabeecadahaas ka mid ahaa kol walba ninku inuu adadayg ku tilmaanaado inuu qarsado dareemadiisa qof ahaaneed iyo waxa laabtiisa ka guuxaya dadka kale inaysan si fudud uga ogaan oohin iyo ilmayn iska daaya jirjireeca iyo dabacsanaanta ayaa waxay ahaayeen dabeecad ninkii lagu arko lagu liido sidaa daraaddeed bulshadii sidaa u fakaraysay dhexdeeda maansada jacaylku kuma bulaali karin inkastoo sidii weerar burxan maansayahanadii hore qaarkood ay arrintaa iyada ah ku gacan sayreen gabadhii ay laabtu ka raacdayna u tiriyeen tixe aad u qurxoonoo dareenkii jacaylkooda ay ku muujiyeen weerar ka hor ugu yaraan 2 jeer waatuu raaga ogaasnaa jacaylka dumarka la ooyey mar waa markii inantii u doonanayda uu ila biyala ula baxay inta la weyraariyey indhihiisa oo 5 ah axmed wiilwaal loogu faatixeeyey marna waa afadiisii faadumo cilmi xuseen markuu libaaxu ka cunay dabadeedna uu ka tiriyey gabaygii uu ilmadiisa anqaasta uga dhigay ee uu ka bilaabay sida koorta yucuboo la suray korama buubaala gabaygii uu ku dhammayn jiray 1,000 kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween faadumo oo kale si kastaba ha ahaatee in badan oo ka mid ah soomaalidii reer miyiga ahayd markay reer magaalowday ayaa dhaqamadeedii qaarkood wax iska beddeleen waxaa soo baxday heello iyo hees casri ah oo noqday gabayadii iyo geeraaradii la yaqiin wax ka duwan maansadii jacaylka ee laga gaban jirayna ay si xad dhaaf ah hal abuuradu ugu soo bandhigeen inkastoo haddaba maansayahanadii waaweynaa ee xilligaasi ay badiba suugaanta caynkaasa dhaliili jireen haddana waxaa jiray qaar tiro yaroo jacaylkii soo maray gabayadii ay tirin jireen kaga hadlay taasoo ay ku muujiyeen in hababkii hore ee suugaanta loo curin jirayna lagu curin karo meelisyo aad u dabacsan oo dhaqaajin kara dareenka dadka dhagaysanaya indhahoodana ilmo ku soo joojin kara bal marka hore ila eega tixdan uu mariyey gabyaagan reer magaalka ah ee aanan magaciisa helin gabyaagan uu jacaylku laf iyo ludba ka saameeyey meelo fogfogna la gaaray si ay ku dhacdayba wuxuu ninkani awoodi kari waayey gabadhii uu jeclaa inuu ku guulaysto sida muuqatana dhul kala fog ayay labadoodu ku kala sugnaayeen markaas baa waxa u soo hadhay inuu gabyo oo keliya in xanuunka haya uu bulshada la qaybsado in kolkuu waaya joogaba uu fariimo maanso gabadha u diro uguna sii dhiibo kolba ciddii uu la kulmo oo dhulkii ay joogtay u socota gabadhaas oo zaynab lagu magacaabi jiray markaana ku sugnayd saaxil oo ah waayadii hore magacii berbera loo yiqiin ayuu tixdan soo socota gabyaagu ugu sii dhiibay nin magaalada u socdayoo saalax la oran jiray isaga oo muujinaya jacaylka uu zaynab u hayo iyo waxa uu marsiiyey ayuu yidhi saalaxow adaa soconayo qaatay sahaydiiye salaama alla yeeliyow haddaad saaxil nabad gaadho sawdiraan ku faro iiga gee zaynab waad heliye saqda dhexe allaylkii hurdada waan ka sararaadheh soortana ma cuno aawadaa saa'im saanahay dheh 3 goortii aan qado ayaan subax qureecdaadheh waxaan sarara weynaa baryahan samay ka dhuubnaadheh saraawiishi waa iga bateen igu samaysnaadheh hadba aniga oo soconayaan sare u qaadaadheh salaan qura haddaad soo dirtoo subaxda ii keeno adigoo sariir ila fadhiya kama sokayseen dheh sidii aan santari gaarahoo saami lagu qaybshay shirka gaariyadan kaa dayaasaan u taagnahay dheh ma samrine sidaad ii ogayd waan ku sugayaa dheh sida ay dad badani weli xusuusan yihiin allah u naxariistay cali cilmi afyare wuxuu ku jiray maansayahanadii soomaalida ee sida weyn u caanbaxay qaybtii labaad ee qarnigii 20aad wuxuu ahaa gabyaa miro waaweyn iyo luuqba la isugu daray oo sidii waayadii hore maansada u curiya mar uu gabiyo mar uu geeraaro iyo mar uu jiiftada ku wahsadaba inkastoo uu soo gaaray xilliyadii heela